ما أركن وبنتو هذا Soomaali waa isla dhalatay muqsantahay marka ma ku sharxeen sida ay shabaabka ku aadbacdo ma ku sharxeen maya aniga waxay gabartayda meeshan intay dabayl soo qaaday shabaab intuu ugu yimiday galayr amal ama dafada la dhigi jir markaan yareen hilibka dafi jirtay ma u dafinaan dhahay meel oo uu imaan karana maaha hadduu meeshan ka qaadaan dhahay ignaa idinkoo dildili lahay mar hore ee waxaasaa iila imaanina shibow dhahay hoos u jees marka wax aqli galay maahan wax aqli galay iila imaabaan dhahay shabaab anaka wiilala noo jiraan dhahay Soomaali waa istaqaanaan dhahay meesha ku dijeen oo ku qariseen ka soo bixiyaan dhahay waa duugana ama meesha ku haysin oo ku afduuban tahay iyaga soo bixi daala idii maraacanay dambina idii qabee isoo bixi la cunugteedii isoo baxsha war ma qarsoomayaan dhahay markii la qaaday darwal ma wadino aan dhahay gaariga staff ma joogo wax meelsi la geeyay dad ma joogo wax dhan waa ognaayaan dhahay laakiin waxay ahayd gabar dhalinyaro ah oo u shaqeynaysa hay'adda nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed waxa la waayay bishii Juun 26 xilligaasi ayay Ikraam sheegtay in ay aadayso taliyaha nabad sugidda oo howl uga baahnaa tan iyo xilligaasi Ikraam war sugan laga helin waxaana la isla dhexmarayay warar kala duwan oo ku aadan xaaladda iyo dhacdada lagu waayay Ikraam waxay muddo 5 sano ku dhow la shaqeynaysa hay'adda nabad sugidda qaranka waxaanay muddadaasi qaadatay tababaro iyo waaye aragnimo shaqada sirdoonka ah Ikraam waxay tababar ku soo qaadatay dalka Britain waxaanay dib ugu soo laabatay Muqdisho si hawsheeda ay u sii anbaqaato haddaba VOA waxay u dhabagashay inay wax ka ogaato xaaladda Ikraam Qaali Maxamuud Guhaad waa hooyada Ikraam waxay VOA-da uga warantay xilligii gabadheeda ugu wardambeysay iyo xogtii ay la wadaagtay gabadheeda say uga baxday waa un la wacay aniga isoo wacday anaa wacay horta fiiday aheeday gabadha waa markasta waa la soconay xaaladeeda waan wacay waxaan ayadoo waxaan arkay makeup iyo wax ma marsanayso markaas ay hooyo xagee marka video call markaas ay waxay tiri hooyo taliyaha ay wacay saacadana aan dhahay maxaa dhacay oo doonay kaas ay waxay tiri waa imaana hooyo hadeer taambo iyaa ku qaadaya dhalinyaradooda la qaadaysa marka waxaan dhahay maxaa hooyo saacadana bixmay hooyo waa soo dhaqsanayo oo marka meeqa saac ay ahayd markaas ay bixayso 2 saac oo wax dhiman ay ahayd adiga 1 saac iyo 40 camal ay 7:40 meelahaas marka ma dhici kartaa in lagu dagay oo al-shabaab gudaha ku jira ay iyada saas ku shirqooleen ma dhici kartaa maya ma dhici karto no way waxa waaye qof ay taqaanay raacday gabadha actifaday ahayd qof ay aqoon raacay ma ahayd qof ay codkiisa taqaano oo lambarkiisa ugu jiray raacday gabadha waxa ku dhacay Falastiin bidix iyo midig ayaga uma dhaafto antan waxaan ku maqalnay in meel magaalada kamid ah gabadha ay ku afduuban tahay oo ay ku haayaan hadal ben oo keed loo soo marin waa shabaab shaqul kuma laha ben iyo ku sheeginayna qaali bidix midig gabadhaada uma dhaafto niman markay faadiyaasin gabadheeda hadalo hadhiiqo iyo kulanay iyo wixii la halmaalo meesha joog maqnaanshaha Ikraam ayaa ka sokow walaaca ay dadka Muqdisho ku abuurtay waxa kale oo saraakiisha dawladda ku dhow aaminsan yihiin in siyaasiyiinta dawladda ka soo horjeeda ay arrinta sii hurinayaan sumcadda dawladana ay ku dhaawacayaan xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo sheegay inuu adeer u yahay Ikraam marna xildhibaankeeda ayaa waxa uu ugu baaqay hay'adaha amniga iyo ciddii war ka haysa Ikraam in ay la wadaagto horta markuu ugu horeysay hay'adii dadkii mas'uuliyiinteedii aan la kulannay siday anaga ay nooga maqan waxay noo sheegeen siday anaga nooga maqan tahay inay ugu maqan tahay dabcan xanuun badanna ay ku hayso wayna la wadaageen arrintaas iyada laakiin haddana waxaa fiican in si looga hadlo oo la yiraahdo gabadhii noocaasaan malaynaynaa xataa malada xataa wax weyn waa moogta marka aamusnaanta ayaa maamada gabadha dhashay iyo qoyskii gabadha ay kasoo jeedaba ka hadal siinaya waxaan rajaynayaa hay'adii ay ka tirsaneed baaritaanka meesha ay u marayso qofkaas meeshay u marayso intaba inay wax ka sheegaan oo ay la wadaagaan qoyska ay la wadaagaan gabadhii waa dhimatay waa inoo shay midna ma dhihi kari laakiin hadda waxaa la rabaa in muxuu ahay qofaas dadka maqan yahay xanuunkeeda waa dareemi kartaa in muxuu ahay arrintaas iyada aad iyo aad xoogga noola saaro maqnaanshaha Ikraam ka sokow in ay ahayd dhacdo ugub ah
oo aanan horay uga dhexdhicin hay-adaha dowladda haddana waxa uu noqday mid mugdi iyo jahawareer abuuray ma ahan oo keliya in arrintani ay ahayd mid cusub laakiin waxaa xaaladda sii murjiyey oo tuhunka iyo shakigana sii xoojiyey qaabka ay hay-adda sirdoonka u maamushay baaritaanka maqnaanshiyaha ikraam waxaana ay hay-addu ka dhigtay arrinta mid qaab sir ah u socotay una soo gabagabowday inkastoo baaritaanada socda aysan wada ahayn in warkooda shacabka lala wadaago haddana waxay hay-addu haysatay fursad ay ku jihayn kartay aragtida iyo tuhunka ay dad badani qabaan hadda oo ah in ay hay-addu ka dambeyso maqnaanshiyaha mid ka mid a saraakiisheedii haddaba maxay hay-addu garab martay oo tuhunka iyo walaaca hadda jira meesha ka saari lahaa waxaa su-aashaasii weydiiyey korneyl cabdulaahi cali macow oo ka mid a saraakiishii hore ee sirdoonka qaranka soomaaliyeed hay-adda waxay garab martay isla markii ay gabadhan inay misan ay tahay oo ay maqan tahay la ogaaday inta waalidiinteeda aysan ogaanin iyaga ayaa la rabay inay dhaqdhaqaaqa baaritaanka ay bilaabaan oo maaragtay ay ka bilaabaan weliba guriga ay deganeed iyo ciddii la deganeed iyo qofkii dadkii oo xiriir kala lahaa dadkii ugu dambeeyey oo maaragtay ay wada hadli jireen in maaragtay hay-adda xuuraan iyo maxaa vitan ay bilowdo yaa saaxiib la ahaa yaa la hadli jiray yaa wici jiray yaa is arki jireen hay-adda marka taas way gabtay ilaa qayladhaanta ay maaragtay ay public ay usoo baxday oo hooyadii ay maaragtay ay qayladhaan afka ku dhufatay oo dadkii oo dhan ay hadleen oo social media ay hadleen marka hay-addii waxa waaye aamusnaanta ay aamustay waxa dhaawac weyn oo soo gaaray maxaa sirdoonka qaranka ayaa maaragtay dhaawac soo gaaray waayo sirdoonka qaranka shaqsi ma laha hebel ma laha waxa waaye qof dhintay hore uga shaqeeyo kuwa noolaa ka shaqayn doono kuwa kale oo maxaa ka shaqeeyo dibadda ka joogaana jiraan laakiin hay-addii waxa waa aamusnaanteedii ayaa waxaa keenay in iyagaa dileen iyagaa maaragtay afduubay iyagaa sidaan yeelay marka waxa waaye sumcaddaas dhimatay oo maaragtay hay-adda ku dhacday waxa u sababay ay ka gaabiso maxaa baaritaanka inayn maaragtay si firfircooniya aysan u galin oo ay maaragtay informationkana dadka aysan la wadaagin inkastoo aysan VOA-du xaqiijin karin haddana waxay ila ka tirsan hay-adaha amniga inoo sheegeen in ikraam ay u gacan gashay al-shabaab ayna la aadeen dhinaca Doobley ee Kismaayo xigta waxaa kale oo ilo wareedyo arrintan looga warbixiyay VOA-da u sheegeen inaysan xaqiijin karin nolosheeda ayna u badan tahay in ay dileen al-shabaab ikraam ila ku dhow hay-adaha cadaaladda ee dowladda federaalka ayaa VOA-da sidoo kale u sheegay in nisa oo ka jawaabaysa dalabkii maxkamadda ay ahayd in ay kasoo warbixiso halka ay ku sugan tahay ikraam in hay-addu ay ku wargelisay in warbixin dhammaystiran oo ku aadan sida loo waday iyo sida ay al-shabaab ugu gacan gashay ay usoo gudbin doonaan maalmaha soo socda si aynu u xaqiijino sugnaanshaha xogta aynu ka helnay hay-adaha amniga iyo cadaaladda waxaanu weydiinay qaali maxamuud oo ah hooyada ikraam haddii ay jirto xog ku aadan gabadheeda in al-shabaab ay u gacan gashay in ay la wadaagtay hay-adda nisa maya wax ii imaada mala markaas waxay noo sheegeen in ay kaala hadleen oo ay warbixin kaa siiyeen xaaladda gabadhaada oy dhaheen wixii beenta maxaa beenahay kuu sheegeen aniga wiilaa ii yimiday wuxuu ii dhahay hooyo gabadhii dhinaca shabaab ay jirtaa meel dhaytubaa kala dhahayaa lagu sheegay marka maxaan ku dhahayay meeshaasaa gabadhii joogtaa ama way dilayaan ama kolley inay dilayaan ay u badan tahay wax uun aqliga gelayni aniga waxaan weydiiyey dadaan dad u diray dad meelihii shabaabku yaqaano wiilal oo maxaan ku dhahay dad qaraabe ah ee kuwada ah waxay dhaheen afkaas xarar dheere ilaa afka Doobley intii u dhaxayso hal meeloo gabadhaas joogta mala website-yadooda iyo raadiyoyaal ay qabaan oo yaryar aynu kusoo sheegeen ay dhaheen gabadhaas ma noola keeni karo mana maxaan ku iraadaayay mana ahayna annaga ma arkin waa beentood dada Soomaali waa isla dhalatay muqsantahay marka ma kuu sharxeen sida ay shabaabka ku aadacday ma kuu sharxeen maya aniga waxay gabartayda meeshan intay dabayl soo qaaday shabaab intuu ugu yimiday galayr amal ama dafada la dhigi jir markaan yareen hilibka dafi jirtay ma u dafinaan dhahay meel oo uu imaan karana maaha hadduu meeshaan ka qaadaan dhahay ignaa idinkoo idi dildili lahay mar hore ee waxaasaa iila imaanina shibow dhahay hoos u jees marka wax aqli galaya maahane wax aqli galaya iila imaabaan dhahay shabaab anaka wiilalaa noo jiraan dhahay Soomaali waa istaqaanaan dhahay meesha ku disheen oo ku qariseen kasoo bixiyaan dhahay waa duugana ama meesha ku haysin oo ku afduuban tahay iyaga soo bixi
daalac idiima raacanaya dembina ii qabee iisoo bixi laha cunugtayda iisoo baxsha war ma qarsoomayan dhahay markii la qaadayo darawal ma wadino aan dhahay gaariga staff ma joogo wax meelsha la geeyo dad ma joogo wax dhan waa ognayaan dhahay laakiin maalinteeda aa laga hadli doonaahan dhahay inkastoo sida ay sheegtay qaali oo ah ikraam hooyadeed lagu wargeliyey in gabadheeda ay al-shabaab u gacan gashay haddana ma ahan mid ay ku qanacsan tahay jiritaankeeda waxayna ku tilmaantay mid been ah hay-adda nabad sugidda oo uu hogaamiyey agaasima Fahad Yaasiin oo ay dad badan u arkaan nin awood iyo galaan galba ku leh madaxda dowladda ayaa u muuqda in uu hay-adda ku keenay tuhun kumilanka siyaasadeed iyo sidoo kalena weeraro uga yimaada siyaasiyiinta mucaaradka waana sababta maqnaanshiyaha ikraan tahliil ay u tahay mid miisaan iyo hadalhayn ballaaran ku dhaxleh bulshada siyaasadda iyo warbaahintaba sidoo kalena waxay madax xanuun ku noqotay mas-uuliyiinta hay-adda ugu sarreysa oo ikraan ay soo wada shaqeeyeen aadna isugu dhowaayeen sida ay noo xaqiijiyeen mas-uuliyiin dhinaca amniga ah oo ku tilmaamay ikraam gabar da-yar oo firfircoon shaqadeedana ku wanaagsanayd hay-addana ixtiraam looga hayay dhexdeeda haddii sida ay sheegayaan xogaha sirdoon ee VOA-du ay heshay ee ah in ikraam ay al-shabaab u gacan gashay qaab sidee ah ayay taasi ku dhici kartaa waxa aan weydiiyey bal in uu qiyaas ka bixiyo korneyl cabdulaahi cali macow oo muddo la soo shaqeeyey hay-adda sirdoonka qaranka waxa waaye qof ay ku kalsoon tahay oo maaragtay marnaba aysan ka filaynin inuu dhibaataynayo ayaa maaragtay arrinkaas oo kaleeto falkaas oo kaleeto u geysan karo qofka maaragtay gabadha u geystay habeenkii gabadha la waayana waxa waaye waxyaabo badan oo information oo aan ka helay dad aad iyo aad xogogaal u ah oo communicationkeeda ku sameeya muxuu ahay surveillance ku sameeya ama tracking ku sameeya dabagal ku sameeyey waxa ay sheegeen in habeenkaa gabadha muxuu ahay laga soo qaaday gurigeeda oo in maaragtay signalki oo sheegay telefoonkeeda in maaragtay saddex anteeno inay iskaga gudubtay anteenada ku taalla muxuu ahay boon dheere kabargarayso kadibna muxuu ahay waaberi kadibna waxa waaye cabdulcasiis ugu dambayntiina gabadha meesha laga qaado oo kilomitr 0 ah hotelka doorbin hortiisa ayaa kilomitr 0 ah fiyaad meesha ahayd halka ayaa telefoonka lagu damiyey marka waxa waaye suurtagal maahan gabadha in maaragtay ay qofkii ka kaxeeyey gurigeeda ay raacday sida ay u aamintay meesha ugu dhow oo gabadhaasi maaragtay cadow ugu dhiibi kara ama dambiilayaal abaabulan oo kaleeto oo maaragtay u gacan gelin kara ama shabaab ugu dhiibi karo waaberi waxa ay tahay waa meel oo gol ah oo ay maaragtay shabaabka aad ay ugu dhuntaan